Dolmar Specialty and Teaching Hospital. يكسجينو وعافمت كاغا. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حكوا أستيسنتها حويان مالنت ديكرك عالمي ولا استيي سنة مركوها لبدا كوني الشنتي بشيمي وحنا استيي حويان World Hypertension League waxaan ugu talagalay waxa wacyi gelin in laga siiyo bulshada ay ku aadan dhanka dhiigkarka sida wada ogsoonahay waxa loo qeexaa xawayaan waa cadaadiska ka jira halbowlayaasha dhiigga cadaadisku ku hayo darbiyada halbowlayaasha waxa la yiraahdaa pressure kaas hadduu kaco waxay noqonaysaa dhiigkar kicitaankaas marka waxa weeyaan waa 140 oo systolka ah kan kore ah iyo 90 oo kan hoos ah la-eg ama ka badan markay dhacdo xalli kara waxa weeyaan pressure jiro ka horna waxa weeyaan bixide pre-hypertension waa borderline ama waxa ma jiro pressure-kii laakiin waxa weeyaan qofku u nuglaana waxaa jira waxa weeyaan waxyaabo u nugleynaya qofka inuu maxaydeen pressure-kaas ku yimaado specific causation ama waxa sababo lama yaqaan laakiin waxa weeye waxyaabo risk factors ama qofka u nugleynaya in pressure-kan uu ku yimaado ayaa jiraan waxyaabahaas waxaa kamid ah waxa weeyaan unhealthy diet ama cunto aanan caafimaad ahayn qofka inuu cunayo tusaale ahaan waxa weeyaan cunto cusbada aad ugu badan tahay cunto waxa weeye dufanku aad ugu badan yahay sidoo kale waxa weeyaan qofka inuu yahay qof jimicsi dhanba aan lahayn qof cayilan sidoo kale tobacco smoking ay kan waxay kamid tahay risk factors sidoo kale risk factors oo wax laga bedeli karin ayaa jira oo non modifiable risk factors ah oo ah qofka age-kiisa 65 ka badan haduu noqdo iyo sidoo kale inay waxa waaye waa parents ama waalidiinta ay qabaan dhiigkar ayadana waxa qofkii u nugleynaysa marka dhiigkarkaas marka waxa loo baahan yahay xawayaan qofka in uu si routinely ah iskaga baaro guud ahaan sida taqriir lagu qoray maanta World Health Organization gaar ahaan South East region-ka waxay leeyihiin 1.28 billion qofood ayaa waxa qabaan xawayaan cudurka dhiigkarka taqriiban waxay leeyihiin 46% kamid ah dadkaas ma oga inay dhiigkarka qabaan waxa kaliya lagu ogaan karaa xawayaan simple waxa weeyaan qofkii inuu blood pressure-kiisa iska cabiro intii asoo waxa weeyaan side effects badan ama dhibaato badan ku imaan lahayd qofka marka muhiimadda ugu muhiimsan waxa weeyaan waa qofka uu kula tacaali kara hadduu la nool yahay xanuunkan waxa weeyaan waa in risk factors-kaas dhibaatada badan leh oo yaray ka isbitaalka takhasusiga iyo tacliimiga ee Dalmar waxa uu diyaarin waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed la nool xanuunkan ama waalidiintooda waxa weeyaan ay la nool yihiin xanuunkan oo risk factors-kaas leh inay u sameeyaan wacyi gelin ku aadan xanuunkan waxa uu yahay waxa keena sida looga hortago iyo in qorshe loo sameeyo qofkan maxaydeen cuntadu qaadan lahaa iyo maxaydeen pressure-kiisa sida lagu dejin lahaa sidoo kale isbitaalka waxa heegan ku ah diyaar ku ah kaadiriin caafimaad oo ehel u ah in xanuunada pressure-ka organada oo pressure-ka saameyn karo hadii pressure-ka zaid u kacsan yahay organada vital-ka oo aad ku saameynaa waxa kamid ah xawayaan maxay indhihi kiliyihii sidoo kale wadnihii waxa isbitaalka diyaar ku ah dad ehel u ah oo ka saaciday qofkaas waxa weeyaan xanuunadaas in ka hortag iyo daaweyn loo sameeyo hadduu xanuunkii jirana la daaweeyo hadduu se jirina ka hortag iyo barnaamijkiisa wixii loo sameeyo muhiimadda ugu muhiimsan waxa weeyaan qofka in awareness-ka ugu muhiimsan oo maanta la bixinayo waxa weeyaan inuu qofka early detection uu sameeyo hadduu jiro xanuunka iyo xaaladiisa inuu la socdo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dolmar Specialty and Teaching Hospital.